ciyaarihii quruxda badnaa halkan lagu soo gudbiyay ciyaarta hadda dheelini waxa mid ugu dambeysay waxa la yiraahdaa waaladu waala aad oo xaraarad badan waaye aad daafato ma geeytaa dan ugu sii wanaagsantaa waxa ku xigta tul yiraahdo walisaqada ayadna waxa waaye qayb ciyaaraha waaweynka ciyaaro iskool jarjar dhaxaa mid waa jarjar saro mid waaweynka dheela mid ciyaalka yaryar dheela daantada yaryarka gabdhaha iyo naagaha la yaalo la yiraahdo waxa dheela ilmaha iyo naagaha waaweynka waxay isugu yimaadeen jilweynta walisaqada iyo waalada waxay ku kala duwan yihiin waa kala forjo badan yihiin ilaa waxa waaye magii dadka qaar wuxuu u yaqaanaa maga ciyaaraha banooniga maartay si loo kala badiyo dadka reer magaalka soo yaqaan magta banooniga si loo kala badiyo hebela koobka qaada la yiraahdo waalada iyo walisaqadana sidoo kale waa meeshaas kaalintaas uga jirtaa caalamka tartan la qabto kale dadka ku guuleysan kara maga ciyaaraha laba tuulo kale ama laba degmo kale ciyaarayso waxa la yiraahdaa hebel iyo hebel dadka la soo xushaa la soo wataa magta yaa u qatarsan oo goolka joogi kara oo boordan noqon kara iyo hebel hal la waco hebel oo maqna ciyaarta lama dhiili karo meesha caalamka ku yiraahdo banooniga maar la yiraahdo waa bargamiyaha raba qabiil ama laba tuulo ma gabar soo aruusinaydo kale waa la isna Soomaa hebel oo waalada joogin habarga waa laga raayna leeyahay waa loo yeera walisaqada reebel iyo reebel ama gabartaas qolada Kaniida hebel hadda walisaqada joogin inkaan oo ka bajarsata labada kaalmo ciyaaraha waaweyn Hiiraan waa labadaas marka qaab nooca lagu kala badiyaa maadaama sidaad sheegtay waalada tirsiga loo kala hormara tirsiga loo kala hormara waxa waaye 10 gacmood la dheelaa waalada 10 kaas gacmood ninkii hormara laba tobanaad qoladii lagu dhufto waa laga raayay qoladaas waa laga burxanbada lagu riday lagu dabaaldega waa loo dabaaldega qoladii markaa dii kuwana 10 bacaan isa saara la yiraahdo gacan saddexaad la dheela qoladii isku rogataa guusha qaad walisaqadana tobitaanka laga fiirsana markii safxa u dhiil yahay gabdho soo galay ninka safxa u dhiil qoon ma soo galay rebel oo ku daadata ka soo baxay xabku meedan leh saasal kaalinta ciyaaraha kale oo kala leeyahay ma la isdhihi karaa ciyaarihii waa sii dabar go'ayaan mise dadku sidii weliga soo jireen u hada weli loogu taagan yahay loo ciyaaraa waa sii dabar go'ayaan dadku diinta fahmay jaahiliin inay aan qarbal tahay ayaa la arkay wixii dhan waa laga tagay oo ku sii yaraano hayb xilliga aroos jiro horaan ayadoo dhalinyarta soo baxdo oo meel hebla daafoota ka jira la yiraahdo jirtay wixii waa laga tagay aroos mugii la isugu yimaad bis la dheelad gabdhuhu ma ciyaaraan labadaas ciyaarood oo walisaqada qayb kuliye gabdhuhu waalada shaqo kuma leh waa ragga kaliya laakiin taageero sameeyaan qoloba group ay raacsantay waa la gasan waalada kale hadaan tusaale soo qaadano ereyga waala maxaa laga wadaa maxaa lagu bixiyo la isdhihi karaa waala waxa loogu baxshay qod la ciyaaraha waalihana waqab waaliye waa ujeeda la boodbooda ninka xukuumtana aad ugu jeedin marka wixii waa la fahmay hadda waa si dabar goohaya walaalaha qaaliga Soomaaliyeed waa islaamay dhamaantiin mowduuca ciyaarta inta ayuu noogu eg yahay daban ciyaarta waa la soo sharaxay tuuladan Ilinguud ayaa la yiraahdaa idin muuqata waa halka ciyaartan marka aan kaga soo gudbiyay ciyaarta lagu qabtay waxay ka tirsan tahay degmada feerfeer ayay ka tirsan tahay gobolka Hiiraan Ilinguud ayaa la yiraahdaa insha Allah ciyaarihii dumarkana waan soo gudbi doonaa ciyaaraha
meel walba aan tagno ciyaaraha marka laga ciyaaro gobol kasta oo tagno insha Allah ayaan idin soo gudbin doonaa qaybta dumarka ayaa ku xigi doonta sidoo kale waxaan codsan lahaa oo codsi aan dirayaa tuuladan waxyaabo badan oo adeegii bulshada ayaa ka dhiman ama adeegyadii aasaasiga ah iraade haday noqoto isbitaal iyo kulay biyo intaba iyo waliba waxbarashadii marka waxaan codsanayaa dadka deegaankan u dhashay iyo waliba maamul ahaanba in halka waxbarashada ugu horeysa waxbarashada in laga caawiyo waayo mid diin iyo mid maadiba kuma aanan arkin goobo waxbarashadana bulshada lambar 1 bay u tahay iyo biyahaba labadaba in la geeyo codsan waliba waxbarashada aad bay u fududahay dadku haday iskaashadaan walaalaha waxaan leeyahay marka waxbarashada diin iyo maadiba in halka goobo waxbarasho la geeyo oo macallimiin laga caawiyo dadkii kulay guryahooda wax ku baranayaan haday xitaa meel loo dhisi karin waxbarashadaasna codsi bay iga tahay in la geeyo tuulada qayr badan baa idin rajeenaya insha Allah barnaamijyo badan baa noo soo socda hadii Allah awood leedmo tan iyo intaan ku kulmi doono mowduuca xiga waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh